muuqaalkan waxa aan idinku tusi doonaa qaabka aad iskaga diiwaangelinaysaan website-kan caalin.com idinkoo isticmaalaya mobilkiina. haddaba si aad isku diiwaangeliso website-kan caalin.com waa inaad ugu horeynba haddii aad mobil isticmaalaysa aad la soo degtaa application-ka caalin online. intaa kadib marka aad application-ka la soo degto waa inaad saa u soo furataa. marka uu kuu soo baxo uu ku geeyo application-kii marka uu saa kuugu furmo waxa aad taaban doontaa halka ay ku taalo login. intaa kadib waxaa ku soo bixi doona page-kan oo kale. marka waxaad isku diiwaangelin doontaa adigoo isticmaalaya Facebook-gaaga. haddaba si aad isku diiwaangeliso adigoo isticmaalaya Facebook-gaaga waxaad taabataa halkan ay ku taalo F. intaa kadib marka aad taabato halka ay ku taalo F waxa uu kuu soo saari doonaa bog cusub. intaa kadib waxa uu kuu soo saari doonaa boggan oo kale. waa inaad halkaa gelisaa emailka Facebook-gaaga. ugu horeynba halkaa waxaad ku qoraysaa emailka Facebook-gaaga. halkanna waxa aad gelin doontaa password-kaaga aad Facebook-ga ku gelisay. marka Facebook-gaagii ayuu toos kugu gelin doonaa. intaa kadib marka aad Facebook-gaaga ku gasho waxa uu kuu soo saari doonaa page-kan oo kale. kadib waxa aad taaban doontaa halka ay ku taalo continue. magacaaga uu raacinayaa intaa. marka aad continue tiraaho kadibna waxa uu si toos ah kugu geyn doonaa website-ka ayuu si toos ah kugu celin doonaa isagoo halkaa kugu tusi doona sawirkaaga. haddaba si aad u ogaato in aad ka diiwaan gashan tahay website-kan waxaad taaban doontaa halkaa yar ee goobada ayuu kusoo dhigi doonaa sawirkaaga kuu saaran Facebook-ga. kadibna waad taaban doontaa. intaa kadib waxa uu ku soo saari doonaa information-kan. halkaa wuxuu ku soo dhigayaa magaca aad isku diiwaangelisay adiga oo soo sheegi doona magaca si lagugu sii daayo course-kan marka aad iska bixiso fee-ga. magaca ayuu kuu soo saari doonaa. marka sidan oo kale ayuu kugu ekaan doonaa. intaa kadib course ayaad dooranaysaa. intaa kadib course-ka aad rabta ayaad dooranaysaa. tusaale ahaan course-kan habka YouTube-ka lacagta looga sameeyo ayaan dooranayaa. kadib saasuu kugu soo furayaa markaad doorato. intaa kadib waxa uu kuu soo furi doonaa bog cusub. intaa kadib waxa kuu soo baxaya course-kaad dooratay. kadib waxa uu ku tusayaa information-ka course-kan adiga oo akhrisan doona. halkan waxaad ku arkaysaa ciwaanka course-ka. halkan waxaad ku arkaysaa wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan course-kan. haddii aad rabtid inaad barato course-kan waxaad taaban doontaa halka ay ku taalo continue course. haddii aad rabto inaad sii akhrido information dheeraad ah oo ku saabsan course-kan waxaad hoos baad u wadi doontaa. kadibna waad akhrisan doontaa. kadib qoraalkaasaad akhrisan doontaa ama hadba muuqaal wixii meesha yaala. halkan waa information-ka aad kala xidhiidhayso macalinka dhiga course-kan. halkan waxaad ku arki doontaa unityada uu ka kooban yahay course-kani adigoo u furfuri doono mid mid. haddaad kaa balaas taasaad soo furaysaa waxaad kuu soo baxaya unityadu ka kooban yahay ayaa kuu soo bixi doona. haddana unit-kaa kalaad furaysaa. haddana jabtarada uu kasii kooban yahay kuu sii baxaysa. haddana kaasaad soo furaysaa. haddana waxaa kuu soo baxaya jabtarada uu ka kooban yahay. marka balaas taasoo dhan marka balaas taasi waxay tahay waxbaa kugu sii hoos jira jabtaradii. marka magacaas saree ku qoran waa unit-kii waxa kasii hooseynaya balaastaa markii ku taalo balaastaa taabanaysaa unityadii kasii hooseeyaad arkaysaa. marka insha Allah saasay u ekaanaysaa qaabka aad u eegaysid information-ka course-ka.